Alla aabba weligay Allah waxaan ka filanayn ayuu igu yiri maanta maxaan sameeyaa marka hooyaan bal wacayaa hooyo hadday iga yeesho ilaah hooyo iga yeesha hooyo hadday iga yeesho aabba ayada iga sasabi lahay bismillaah hooyaan wacayaa hadda وعليكم السلام هوي ساتها هوي وفي عنا ساتها هوي وفي عنا الحمد لله حالة هذا كورا وفي عنا ما الحمد لله واحدة يبقى ومن شرع تبقى في عينها هوي أنا وفي عنا رمضان تكورا وعلى اسكرده لا حيا ما شاء الله هوي أرينا ربينا كالها لهم كلها الكرام ها دوستي محاوي hooy macaanay waxaan rabaa inaan kuu sheego mataqaanaa hooy wiilaa 7 sano isla sheekeysanaynaa guuri isoo bandhigto in kasoo dooro rabo aabba waa u sheegay aabba wuu iga diiday wuxuu igu dhahay wiilkaa qabiilkiisa ma isguursano qabiilkiisa markaa u sheegay waa garta wiilka iyo maanta hooy wiilka reer qurac waaye quracna maxaa noo soo arkay qurac xagaad ka keenta ma weyda nin reeqan sax hooy macaanay wiilkaa in badanaa isjeclayn jaamacadda isaga xitaa iga soo bixinaya intaasoo sano 7 sanaan jacayl wada jiraynay maalin walba waxaa u sheegaya inaan beri ka maalin soo doono rabo maantana wuxuu igu dhaha wiil oo maasha allah maalkiisana haysto wax walba adiga kuu awoodo hooy wax walba ku siinayo guri kuu dhisaayo waaye marka hooy macaan qofka bini-aadanka qabiilkiisa laguma naco shaksiyadiisa waayo wiil dabeecad fiican oo aniga maasha allah aad iyo anfacay waayo hooy macaan maanday gurina kama rabo gabdhaantina kama rabo reerkaad sheegaysa ma garad haye waxay haystaan ba ayagaa isku haysta maxaa hooy maxaa dhacay qof bini-aadan maa qabiil ku nacee maya sharafta qoyskeena waxaasoo dhanka weyn hooy ani sharaftaada ma dilaayo aniga maanta waxun miyaan kuu keeno guri xalaala kuula imaaday wiil oo soomaaliyaan kuula imaado hooyo macaasaa maxaa ii leedaha adiga oo saaxiibaday miyaasaa idhahayo hooyo haddaad habaarkayga rabtid reerkaa guurso haddaad ducada iyada aniga aaba rabtidna ha isku admay hooy macaan ma ka maarmo wiilkaa maxaan sameeyaa waayo adiga wax ii sheeg annagaa kuu googoobayna nin gayaankaaga hooy aniga ninaa ii goobtay aan rabin maxaa igala doonaysaa hooy macaane hooyaday macaanaa tahay waan ku jeclaa hooy macaane waa ku baryaa maya hooyadaa nacaan waa ahay waa ku jeclahay aniguna laakiin kulama rabo reerkaas maanday haddaad dhagaha wax ka maqlaysid weeye sharafta qoyska iyo qabiilkaad ku ciyaaraysa hooy macaan may maqlaysaa aniga xaq ule inay dhegaysatid hooy macaan wax kasta hadday dhacaan wiilkaas aniga kama maarmo mana dayn karo waana guursanayaa waxaad sameynaysa sameeye aniga waxun haddaa iniina imaan laha hooy maxaa igu samayn lahaydeen ma jirto habaarkayga haddaad rabtid raac iga bax telefoonkeeda anig waxay doonaan sameeyaan aniga qof wiilkaan ma ka maarmo aniga qof bila-aadana qabiil ma uga tegaayo wanaagu iisoo sameeyey intee geenayaa ani maa wanaagga iisoo sameeyey gudi karo waxay doonaan ha dhahaan alla waaridkan haddii laga amardiida dhib waayo maxaan sameeya hadda waxaan sameeya ma garanayo wixii ka dhacayaa ka dhacan waxaan leeyahay waa isguursanayna hooyo aaba midna ma u tegaysi baan leeyahay haddaa waaya wallaahi bilaahi dhib waaye haddii qabiil la isku ceyrinayo soomaalida dhexdeeda weligay hooyaday aabahay arrinkaan kamaan filanaynin inay ugu dhacayso dhib weyn aan haystaa wallaahi dhib weyn ayaan haystaa ka war qof ajanabi haddaan dhihi lahaa dadka
hooyadii aabbahay weli jahalnimada ugu dambeysa sababtoo ah gabdhaha faacaya niman ajanabiya soo doona waa la siiya anigana wiil Soomaaliya oo wanaagsan oo wax walba aniga ii sameynayo hooyadii aabbahay wax walba u sameynayo ayaa isoo doontay haddana waxay igu diideen qabiil laga soo tegay mar hore maanta waxaan sameynayaa 7 bariya ka aamusnaa taleefanka ma qabanin lama hadlinin sababtoo ah waxaan la hortaga ma garanayo go'aankayga maanta waxa waaye inaan u sheego arrinka ila soo gudboonaaday ama ila igu soo siyaaday arrinku ii dirayna in hooyo aaba iga diideen ayaan u sheegayaa haddaba waxaya السلام عليكم بيبي ساتهاي وافي عنا الحمد لله والله وارنتا كل ما صاحب دينين صوبته أرن باي قبصده هذا كومي شيء كره كان اسم الله ذا مي إيمان كرتا ها هل ساعة بعد هاي بيبي فيري xaafadeena ma joogo waxa jooga xaafadii oo gabadha saaxiibada ee Shukri maalintii ugu imaanaysa taasaa jooga baby soo dheerehay hi baby thank you hi kala xagee hawsha uga bilaabaa wallaahi hawsha way igu adag tahay dhib ma lahan dad badan oo aniga ila mid ay arrinkaa la soo gudbaanaataa oo ka cabsama insha allah oo sheegayaa labadeenaan isku saynaa dhayn waxba hooyo aabaha iga doonin سمعنا إن شاء الله يا واد أنا جوا بيبي صوت هاي إن شاء الله أنت صدرتي أنا ما صدر بس أنا صدر أنا دوا بس عن صدرها ستعرف ما أنت كم قلعي واي والله عنده والس ما أنا حفظ ما تبقى أدمية حفظ أنا ما مدحي حنوني حفظ أنا سؤال باي صح كورن شو نسيتها في عنده حالتي في عنده صح ما شاء الله هاي إيه راضي والله ما شاء الله هوي كور والله في عين يعني هاي وأنت لا هاي كاس هذه اللي الجورا أساس اللي هذينا أساس كده مع سلام الجورا هذينا والله ورنت كوده حالك ما أنت حوا فرحة دي مع قصر يارو حكون جرو أساس ما هنجرني يا والله أرن أذيع كادم بيمكرت أنا كسر في عدمة ما wataa isku ogeyn inaan labadeen isu guursano صح wataa ii tiri hooyo arrinkeena u bandhigiyo aabbo صح hooyo aabbo ii kaa diideen waliba qabiilkaaga iyu kaa diiday qabiilkii diideen ha okay maxay leeyihiin isma guursano aniga la guursan mase adiga qabiilkaaga iyo aniga qabiilkayga isma guursadaan isma guursadaan ha حاسبنا حسنت كل دي واحد معناه معقول هذا اسمه كورسين معقول معهني اسمه كورسين معقول ما سبب كلو هذا ليك دي ومعناه فاميلي يبقى دي ما مجرى ما مجرت قبيلك يا قبيلك قبيلك يا قبيلك اسمه كورسدان ساسي تاي قبيلك adiga ka dhalatay yakaanu ka dhashay isma guursadaan soo sida darteed hooyadii aabaha ika diidan aabaha aabbo wuxuu ugu dhahay habaarka ku hogaadaa guursatay hooyana ka daran wayba xanaaqday telefoon igama qabanayso aabihi hooyo dhima lahano waa ina dhima lahana u tagaa hay
dee sababtan ii sheegaan leeyahay kolley haddaan kusoo doontay si sharaf inaa kuu doontaa muhiimadda because gabar Soomaaliyeed oo qaaliga aan jeclaan tahay inaa marka si sharafla kuu doonto waa mugtee marka haddaad aan ku dhaho maanta waa saxadeena ama waa isla fakanaynaa waxay keenaysaa dhib kale sii saaidinaysaa fahmaysaa so marka intay dhib kale sii saaidinayn waxaa fiican inaa anagana isku dayno inaa aabihi hooyo ka dhadhacsiino arooskeena iyo maxaa la doonitaankeena ma fahanti markaas ani saasa ila fiican kulley haddana waxaa waaye mar walba way fiican tahay waalidka xoogaa in maadaama waalid iska yihiin dadkiina ay iska yihiin dad noocaasa macnaha lama yaabayo fahmaysaa marka bal ani waxaas dhihi lahaa maadaama aan ku jeclahay jaceylka ku qabo ma ah inaa adiga familigaada adiga aan sii kala dilo aan sii kala dheereeyo haddii marka aan usoo dad badsana ka hor walaa arrinkaas ma xumo laakiin aabihi hooyo inay iga yeelayaan ma umalaynaya sababtoo ah hooyadii waxay ahaa qofkii igu dhowo saaxiibada ay ahayd arrinkaasna way u gacan sayrtay waxay igu dhahday haddaad ducadeeda rabtid wiilkaas isaga har haddii ay habaarkayga rabtidna dee waxaa adiga aad jeceshahay samee maya de aninta kolley hata waxaa sameyn lahaa oo kale waxa waaye bis inaad maamadii odag u taga haddii markaas aan u dad badsano haddii markaa u dad badsanana kadib inaa maxaa la sheega ayagii ay kolley inay diidayaan umaleyna haddii dad badan loo keeno kolley way isceebsanayaan laakiin ma umaleynayo inay fiican tahay inaa adigiina anigii anoo saas dhahayo familigaas ka dhashta dhahayo haddana adigina inaa adigina kusii god kugu sii rido maaha adigina xoogaa waxaa iga fiican jacaylka wax walba ku baraa ma fahanti waxbaa oyni beebe caadi waaye waxbaa oyni waxaan waa ka baxeynaa dhib malahan waa laga baxayaa ma fahanti oyni marka waxaa waaye adiga waxaa ila fiican ani mar walba ma kala dheeraanayna ma fahanti adiga waxa ani damacsanaana qof inaad la sheergaraysid maaha qofna la sheergaraynin so marka waxaa sameysaa waxa aniga adi aan damacsanaha qaasa noo ahaadaan then waxaa sameysaa maxaa lahaa ii sheeg hooyo aabana barnaamij kale ula tegeynaa so markaas haddii markaas aragno inaa waalidkii dadka marka ukeena dadkeena ay kusoo gacan seyraan then optionka labaad aan ka dhiganaynaa ma fahanti inaa ani adi markaas aan wadaar isla raacno ama isla tagno ma fahanti so markaan waxay la fiican inaa culimada iyo waxaas u bandhigno si hadhowta asagana dadkii family aabihi hooyana anakana aan dhib u geysanin anaka ayaga ceebeynaynin kolley because hata waxaa hadday maanta qof saasa kugu diida macquul ma noqonayso mugtee ya marka jaceylkeena waalidiisa yuusan nagu khasbin in anakay waalidkii isku dhacno fahmaysaa so marka waxaa ila fiican aniga sida hadda aan kuu sheegay inaan sameyna ka war wallahi baby arrinkaas aniga waan go-aansaday horta kow inaan ani adiga anagu maadaama hooyo aabay ka diideen aan isguursano sababtoo ah in badan isla soo soconay wixii aan soo jilayn intaas soo sameynayna waxaan leedahay go-aankii ugu dambeeyay waa inaad maanta wada baxno ha okay shukri ogta ha okay waa bixina marka diyaar waay hay baby thank you hay waran bixina meeqa saac wallahi adiga beri ka waran taa ka dhigan beri sunaha okay diyaar waa marka beri aan bixina anigana maanta wixii soo dhameysana soo diyaarna ilaa caawo bis insha Allah caawo soo wicna beri subax waxaa ka bixinaa meesha ay maxaa la sheeg meesha oo gaariyaasha ka baxan ya hay baby هيا دي سيبا يا بيبي هاي هاي بيبي معاك